maanta waxa dhacay wiil baa gabadh iska jeclaanaya hooyadii ama aabihii baa diidaya guurkaas ma u banaan yahay xalaal maahi inuu guursado waa ka xaraan hooyada haday gabadha iska diido waa diidi guurka ma guursanaysid kun jacayl filin hindiya matala doonto xataa ma socoto haddaad guursato caaqil waalidiin baa tahay aabaha haduu gabadha diido wuxuu doon ha ku diido gardaraha ku diida xataa ma guursanaysid laana gabadhii ugu dambaysan ma leesh inaad na guursato waa mubaax waa xalaal inaad waalidka adeecdo waa farad waa waajibki iyo mubaax haday iska hor yimaadaan keen la qaadan warkeen la qaadan waalidka la qaadan amarkiis waa farad maanta walaalayaal inaan waalidka wax u tarna maahine dhibtaan gaarsiinaa kamaad ka badan dhalinyarta u fiirso maanta ma garanayaan walaalayaal tacabka aabihi haysta ma garanay korku xoogaha yara weynaadu ilaahay adduunyo sayana waxa weeyaan nin kasta noloshiisa iyo adduunyadiisa uu daboordi doonaa oo maalka uu siiyo ilaahay siiyay inuu waalidka wax uga taro uu ka bakhaylaya qofkii laakiin ma garanay dhibtii soo gaadhay aabihi war aabaha duliga gaadhay ma garan darta loo duleeyay rag isaga qayrkiya inuu aabaha u duloobay ma garanaysaa inuu aabaha madaxiisa jabiyay darta u jabiyay soo luqmadaada u diyaariyo oo dharkaaga u diyaariyo durayga iyo xumada iyo xanuunka ku dhacay dawadaada u soo iibiyo tacliintaada hamigu ka fikirayay aabaha inuu xanuun qaaday ma ogtahay inuu macaan qaaday ma ogtahay aabaha inay hooyada dhiikar qaaday ma ogtahay sababtaada ay qaaday gabadhay ma ogtahay ma ogid waa iska weynaato waxa ma garanaysa ku yaro hudda ka baratay ku yaro dikad ka aragtay ayaad moodaysaa maanta inuu waalidka ka sareeyo ama wuxuu ku taray waxaan leenahay dhalinyaro biriga ku dadaala war waalidka adeeca wallahi ma liibaanaysid wallahi billahi ma liibaanaysid ninka waalidka raali ka noqon waayo wallahi ilaahi raali ka noqon maayo ilaa nabiga yiri raaliga ilaahay waa raalidka waalidka carada ilaahayna waa carada waalidka waliga soon waliga tuko waliga xashka tag hooyada iyo aabaha godka haday galaan iyagoo raali ka ahayn ma liibaanaysid fi dunya wal aakhirah is'ilali intay joogan ka faa'iideyso ducada ka reebo nabigu wuxuu ku tilmaamay sallallahu alayhi wasallam labada waalid waa laba albaab jannada ama ka gal ama iska xid aday ku taala kulka ninkay hooyadii noo shahow albaab jannada haysata ninku aabihi nool yahow albaab jannada haysata ninkii labadiiba ilaahay u daayow alxamdulillah dhamaanta nicmad weyn ayuu ilaahay ku siiyay la ilaasho